Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta caawa taariikhdu waxaa weeye maanta caawa cod baan halkan ku duubayaa ummadda Soomaaliyeed baan u duubayaa gaar ahaan ummadda reer Puntland waxyaalo wadankii ka soo kordhay maantana caawana taariikhdu waxaa weeye bishii Juulaay 26 waa habeen Axad ah arrimo ka soo kordhay Soomaaliya gaar ahaan Puntland baan rabaa halkan inaan ku duubo maleeshiyaad ninka waqtigiisu dhammaaday ee la yiraahdo Xasan Culusow Gurguurte Xasan Doorshaan uu ka keenay xamar oo uu ku soo daadgureeyey Galmudug Gaalkacyo dhanka Galmudug oo ciidamo maleeshiyaada uuna rabo inuu ku carqaladeeyo Puntland dhanka Puntland baan maqlay marka Xasan Doorshaan waxaan leeyahay ama maleeshiyaad ku soo aroori ama iska daa waxba naga qaadi maysid Puntlandna waxba ka qaadi maysid Puntland waa dowlad waxa aad xamar ku haysid oo dowlad ku sheegaa ka xoog badan 100 jeer ka xoog badan Soomaalinimada iyo dowladnimada hadda lagu naaloonayo Puntland baa samaysay sideedana Xasan Gurguurte waxaan u sheegayaa iyo maleeshiyaadka xamar nimanka kooxda fiilada joogta xaaraanta ku joogta oo waqtigii ka dhammaaday oo ahayd bishii May 15 buu ugu ekaa 2 bilood oo sharci darro ah xaaraan ku fadhiyaan dowladda Puntland waxaan u sheegayaa iyo dowladda Jubbaland idinkaa sharcigii saxda ah ku taagan dastuurkii saxda ahna idinkaa ku taagan kooxdaas argagixisada ah oo dowladda Soomaaliya sheegatay waqtigii ka dhammaaday waddanka laga badbaadiyo maadaama dowladdii saxda ahayd oo sharciga ku taagnayd ay tahay Jubbaland iyo Puntland waxaan kaloo rabaa inaan inta ku waxaan dhihi lahaa maamulka Galmudug waxaan dhihi lahaa ha u ogolaanina ninka la yiraahdo Xasan Doorshaan inuu maleeshiyaad xamar uu ka keenay soo dhexmariyo goboladiina soo dhexmariyo haddaad u ogolaataan waxaa ogaataa nabadda gobolka Mudug laga shaqaynayay oo in badan lagu wada joogay inay adinku qaribteen mideeda kale ninkii u daraataan arkaynaa ninkii caana kaga daataan gobolka Mudug nabad baa lagu wada joogaa haddii laakiin ay ka fursan haddii macnaha nabadda la diido dee cid caana laga dhamayaa ma jirto marka gobolka Mudug nabad baan u rajaynayaa iyo Soomaaliya oo dhan iyo dowladda Puntland iyo shacabkeedaba guul iyo gobonimo u rajaynayaa waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo dagaal la yiri wuxuu ka dhacay gobolka Sanaag oo 2 beelood oo walaalo ah oo beesha Maxamuud Harti ku dhexmaray marka dagaalkaasna waxaan dhihi lahaa dagaalkaasi looma baahna si degdeg ah lagu joojiyo shuruud la'aan ha lagu joojiyo hadda ka horna waa sheegay dagaalkaas in degdeg lagu joojiyo wax dhacay ma aqaan marka ilma adeerayaal waxaan idhaa dagaalka joojiyo hadda dhagax tuujin iyo taabasho waa isaga mid baa la yiri waxba ma maqlaysaan ilma adeerayaal dagaalka joojiya dagaalka hala joojiyo inta dhimatana Ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna raaji'uun labada meelood waa dad isku beela oo hal meel ka soo wada jeego oo hilibkooda isku yaala wada dhashay Ilaahay ha u naxariisto intii ku dhimatay hadda waxaan leeyahay dagaalkaas lax dhulkan abaarmo mar hore baan u sheegay in la joojiyo dowladda Puntland ciidamo hageysaan leeyahay ciidamada gobolka Sanaag ciidamada gobolka Bari hageyso dowladda ciidamada gobolka Mudug aysan aad iyo aad baan u bogaadinayaa ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed guul iyo gobonimo u rajaynayaa waa bisha Agost oo hadda Janbari ka dhiman yihiin waa bishaar Agost bal khayr dhahaysna waa sameeyay bisha Agost oo 28 guurada ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ayaa guul u rajaynayaa dabaaldega waxa weeye 28 guurada Puntland kaliya maahan waa Soomaaliya oo dhan sababta waxa weeye waa markii la yeglaalay markii dowladda dhexe dhacday meeshii Soomaali lagu yeglaalay waa Puntland marka guushaas iyo hambalyadaas ummadda Soomaaliyeed baan u rajaynayaa waa anigu Korleen Farxaan Abshir Maxamuud Sheekh Raamoole khayr badan iyo bashbash iyo barwaaqo idin rajaynayaa